Assalaamu calaykum waraxmatullah isku soo noqod wanaagsan muuqaalkan waxoogaa ka duwanaan doonaa muuqaaladan halkan soo geliyo waxa aan markaasi helay su-aalo fara badan oo aad Instagram-ka igu soo direyseen oo ku saabsanayd markaasi sida loo dhiso cryptocurrency broker cryptocurrency broker waxa weeyaan tusaale ahaan waxaa jira dad badan oo markaasi ka ganacsada ama trading ku sameeya muxuu ahaa lacagaha digitalka ee cryptocurrency-ga badanka waxay markaasi isticmaalaan oo ay markaasi tradingnada ka sameeyaan brokero kala duwan oo markaasi ajaanib ah marka su-aashan helay waxay u dhignay sida tan sidee baan u samaysan karaa markaasi website broker ah yani web application aan markaasi ku arki karo tusaale ahaan lacagaha kala duwan intay marayaan si aan ugu tixraaco iyo waxyaabahaas oo dhan okay marka waxa aan 2 bilood ka hor I think hadaanan khaldanayn aan sameeyay markaasi project ama tutorial aan markaasi si directly ku tusayo sida loo sameeyo markaasi application-ka adigoo isticmaalaya markaasi JavaScript iyo APIs laakiin aad uma baahnid inaad garatid JavaScript iyo sao programming u shaqeeyo waxaas oo dhan si aad markaasi u sameysid project-gan aan dhisnay 2 bilood ka hor marka muuqaalka waxaan kugula wadaagi doonaa sida aad u samaysan kartid brokerka adigoon markaasi codingka waxba ka garanayn sidoo kalena aanay markaasi kugu baxayn kharash badan oo aan wax lacagi kaa baxayn businesska noocan oo kale waa business aad u fiican oo qofku hadduu markaasi isku taxalujiyo uu ka dhigan karo markaasi meel uu income fiican ka helo okay intaa halkaa markaynu kaga nimaadno aynu toos ugu gudagalno sida markaasi loo samaysanayo ama saad u dhisanaysid waxaan u kala qaybin doonaa markaasi 3 qodob waa qodobka koobaad oo ah dhisitaanka website-kii saan sheegay muxuu ahaa uma baahnid adu inaad dhisatid hore ayaan project-gan u sameeyay marka waxa aan source code-keed kula wadaagi doonaa GitHub marka waxaad tegi doontaa GitHub kayga haddii aan halkan idinka tuso linkiga waxaan dhigi doonaa markaasi qaybta hoose ee description-ka ee videogan marka waxaa kuu soo bixi doona page-kan kadibna waxaad ku dhufan doontaa code-ko dhan inaad markaasi 2 shay baad samayn kartaa ama waa inaad cloning ku samaysaa adigoo terminalka isticmaalaya haddii aanad taa garanaynaa simply waxaad download garaysan doontaa zip code-kan zip-kan ama file-kan folder-kan aad download garaysan doontaa kadib markuu kuu soo dego aad click siiso waxa ku jira markaasi faylashii website-ka uu ka koobnaay oo dhan iyo waxyaabihii oo dhan kadib waxaad ku furi doontaa Visual Studio yani text editor haddaad haysatid code editor haddaad haysatid wuxuu noqon karaa markaasi Sublime Text ama Visual Studio kadib markaad ku furtid waxa uu ekaan doonaa website-ku sidan qaabkan oo kale uu noqon doonaa isagii oo dhammaystiran oo bartan sare waxaan ku haysanaa tusaale ahaan cinwaankii meeshii qofku sign-in-ka ka sameynayay qiimayaashii priceski haddaan ku dhufto wuxuu igeynayaa markaasi priceski sida imika sida bitcoin oo maanta maraysa markaasi 30,000 lacagtana waxay tahay markaasi euro dabcan adu haddaad u baahatid waad bedeli kartaa oo waxaad ka dhigi kartaa dollar halkan hoosena waxaa kugu taxan 10 lacagood ee ugu sareeya 10 digital currency markaasi suuqa capital market-koodu uu ugu sareeyo halkan hoosena waxaa ku yaala tusaalehaan halkan waxaynu haysanaa latest news bartan waxaynu ku haysanaa information iyo footer-kii dhisitaanka project-gan waxaan isticmaalay JavaScript iyo markaasi API waxaa loo soo gaabsaday application program interface yani waa siday iskula xidhiidhaan kombiyuutaradu si online ah marka waxaynu la xidhiidhaynaa kombiyuutar kale oo kaydinaya daatadii suuqa oo inagu uma baahnin inaynu eegno maalin walba yani isbedelka ku yimid lacagtaas kombiyuutar baa inoo kaydinaya meel kale yaala oo qof kale iska leeyahay inaguna waxaanu isticmaalnaa markaasi si free ah meesha waxaa la dhahdaa haddii aan idin tuso CoinGecko marka saad halkan ka arkaysaan waa company markaasi international ah si free ah ayaad markaasi u isticmaali kartaa hadhow tolo markay haddii uu weynaado brokerkaagu oo muxuu ahaa size-kiisu extra large oo kale noqdo
markaasoo kalena waxaad bixin kartaa lacag si ay markaasi kugu kordhiyaan response timeka. sababtoo kan freegan imka isticmaalino waxaa laga yaabaa dhowrkii secondba inuu hal mar updating ku sameeyo lacagta yani isbedelka ku dhacay. laakiin ka muxuu ahaa meeshan ay ku qorantay I think ka markaasi lacagta waxaa yani response timekaasi wuxuu noqonaya mid ka dhaqso badan. saan soo sheegay waxyaabahaas oo dhan uma baahnid inaad adu garanaysid, just waxaan doonaya inaan markaasi kula socodsiiyo oo ku ogeysiiyo. okay, qodobka labaad muxuu ahaa markaasi meesha imanaya wax weeyaan, okay waan samaystay website-kii, hadda waa digan source code-kii aan download garaystay, sidee baan markaasi internetka ugu soo bandhigaa, yani sidaan live uga dhigaa website-kaygan. waxaad samayn kartaa laba shay haddii aad garanaysid sida website-yada hostingka loo iibsado iyo domainka iyo waxyaabahaas. waxaad tegi kartaa meelaha muxuu ahaa hostingka laga iibsado sida Google oo kale, Google Domains, GoDaddy iyo meelahaas oo kale. haddii kale oo aanad markaasi wax lacag haysan oo aanad doonin inaad barnaamijka gashid, waxaad tegi kartaa markaasi meel la yidhaahdo Netlify, oo waxaa markaasi suurtagal kuu noqonaysaa inaad si free ah website-kaagii ugu host garaysid, yani storage baad u baahantay, storage free ay markaasi ku siinayaan oo aad website-kaaga gelin kartid. markaad Netlify gashid waxaa kuu soo bixi doona markaasi page sidan oo kale ah oo information-koodu ku qoran yahay. keliyat waxaad tegi doontaa adigu sign up. haddii aad hore account u haysatayna waxaad odhan doontaa login. okay, sign up I think in qof walba garanayo waa sida markaasi loo sign up gareeyo muxuu ahaa website-yada kale oo kale caadiga. kadib anu waxaan ku dhufan doonaa login si markaasi ii geeyo account-kayga. okay, bartan uu keeni doonaa. waxaan u baahanay markaasi inaan ku upload gareeyo faylashii website-ka uu ka koobnaa. sida ugu fudud ee aad ugu upload garayn kartaa wax weeyaan GitHub account inaad samaysatid. GitHub yani haddaad haysatid, kadibna waxaad samayn doontaa folderkii imika aad soo degsatay ayaad gelin doontaa markaasi GitHub. haddii aad YouTube-ka ku qortid sida GitHub loo samaysto faylasha lagu kaydiyo, sababtaa muuqaalka dheeraanaya haddaan imika taasna sharaxo. marka GitHub markaad faylkaaga gelisid ayaad ku noqon doontaa markaasi bartan, waxaad ku dhufan doontaa meeshay ku qorantay new site from Git, kadibna waxaad kusii dhufan doontaa GitHub. waxaa kuu soo bixi doona page-kan uu ku kala weydiinaya markaasi repository-ga ama folderka aad doonaysid inaad soo gelisid. bartan aan ku dhufan doonaa private baan ka dhigay muxuu ahaa faylashayda. kadib bartan aan tegi doonaa. adu waxaad odhan kartaa tusaale ahaan inaad u ogolaatid inuu faylashaada oo dhan all your repositories-kaaga oo dhan inuu arki karo. haddii kalena waxaad dooran kartaa inuu arki karo markaasi Netlify repositories-ka aad dooratay adu markaasi. waxaan samayn doonaa bartan aan tegi doonaa, kadibna waxaan soo doori doonaa folderkii ay igu jireen crypto app. bartan uu keeni doonaa. waxa aan ku dhufan doonaa markaasi crypto app. uma baahnid halkan inaad wax ka badashid ama magacaaga oo kale aad ka dhigi kartaa. kadibna waxaad ku dhufan doontaa deploy site. waxay ka dhigantay markaasi inuu website-kaagii deploy garaynayo oo uu internetka gelinayo. linkigaasaad markaasi ugu dambeynta ku dhufan doontaa. waxaan arkaynaa markaasi in hadda uu website-keeni live yahay, inagoon markaasi u baahan inaynu wax lacaga bixino sida domainka, hostka iyo waxyaabahaas oo dhan. dabcan haddii aad u baahantay oo shirkadaada aad doonaysid muxuu ahaa inaad domain u iibisid, domain baad soo iibsan doontaa. kadibna waxaad iman doontaa muxuu ahaa Netlify baad kusoo noqon doontaa. waxaad tegi doontaa markaasi domain settings, kadibna halkan aad kaga dari doontaa domainkaaga. sida tusaalehaan domain waxaad haysatay la idhaahdo www.test.com. deetna waxaad ku dhufan doontaa verify. imka wuxuu leeyahay test.com already has an owner, is it you? yani qof kala haysta oo iskale test.com, ma adiga la buu leeyahay markaas. bartasada adigu ka diiwaan gelin doontaa domainkaaga. sidana waxaa markaasi live kuugu noqday brokerkaagii cryptocurrency-ga ahaa, iyadoo wax lacagii $1 haba yaraatee aanay kaa gelin. ma sheegin haddaad doonaysid markaasi domainka inaad soo iibsatid. domainkuna wax fara badan maaha. qaar baa gada $5 sanadkao dhan, qaar $10.
muhiimad waxa weeyaan inaad hadda samaysatay company markaasi adiga oo aanay markaasi wax qarashi kaa bixin. Okay, ugu dambeyntii waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysatay oo muxuu ahaa haddii aad doonaysa inaad companyga furatay uu tutorialkani kuu noqday markaasi mid ku caawiyey. waxaan ka codsan lahaa muxuu ahaa inaad like saartaan muuqaalkan sababtoo waxay ku caawinaysaa algorithmka YouTube-ka inuu markaas usoo bandhigo dadka kale xiiseynaya barnaamijyada noocaas. intaasaan kusoo gabagabeynaya tan iyo intaa muuqaalka dambe ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabaday.